rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sidaad aragtaan waxaan joognaa Cigaal International Airport Hargeysa waxa farxad noo amaanta in 19 kamid ah maxaabiista ku xidhneed xabsiga Hargeysa muddo 9 sanadooda ay saaka ka ambabaxayaan airportka insha Allah aan rajeynayna inay nabad tagaan deegaankoodii Galmudug waxay ka tagi doonaan magaalada Gaalkacyo Galmudug ay maanta ka tagi doonaan haddii Allah idmo waxa sida odayaashan la qabnaa mahad celinta madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliland sida ay ugu dhiiradeen maadaama muddo badan ay raggan xidhnaayeen xukuumado badanna ay soo mareen runtii madaxweynuhu ku dhiiraday inuu isagoo sharciga u eegaya uu cafiyo maxaabiistan uga mahad celinaynaa odayaasha iyaguna is soo xilqaamay oo naga aqbalay codsigii inay yimaadaan maxaabiistan la wareegaan oo kaxeeyaanna ayagana waan u mahad celinaynaa dhalinyarada maxaabiistana waa u dardaarmaynaa in qaladkii hore ka dhacay ilaawaan muddada ay xidhnaayeen ay u noqoto cibro qaadasho insha Allah hadda ka bacdi inay noqdaan kuwa dadkooda iyo dalkoodaba anfacayaan u rajaynaynaa insha Allah aad baa u mahadsantihiin safar baa tihiin nabadgelyo ayaan idin rajaynaynaa insha Allah inaad ku nabad tagtaan deegaankiinii ehelkiinii iyo dadkii idin sugayay intaba وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أيام هذا إسكالة وحن جوجنا أيربورك هرجيسة وحن ربنا شعبك سومالي لان إنا نقوم هذا علينا محابيستان أن مانتي أيربورك أن كود الدولة إنه سيدينتي يعفنتي مدحوينا أو عفية أن لسوكو بكرين يو دعاء يو حشمت يو حرير iyo warbixin aan u geynayno Galmudug iyo hawiye dhamaantiis meel kasta joogaba na shacabka kala duwan ee aan matalayno maanta ayaan u gudbinaynaa codsigaasna dhammaan hay'adaha kala duwan iyo madaxweynaha ayaan ka codsanaynaa xalana waa ka codsanay haddana waa ku celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan joognaa airportka Hargeysa ama Somaliland waxaan halkan kula wareegnay oo inagu wareejiyeen dawladda Soomaaliland oo horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maxaabiis tiradoodu la eg tahay 19 maxbuus runtii waan uga mahad celinay maxaabiistaasoo muddo dheer ku jirtay xabsiga Hargeysa ka horna laga soo wareejiyay jasiiradahaas Seychelles iyo meelahaas marka in maxaabiistaas ay nagu soo wareejiyaan dawladda Soomaaliland oo madaxweynuhu horkacayo aad aan uga mahad celinaynaa xalayntana saasaan maarta uga mahad celinaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waliisa wasiirada iyo dhammaan madaxda Soomaaliland iyo shacabkeedaba marka waxaan leenahay Ilaahay mahad ka gaarto runtii waxay tahay arrin taariikhi ah oo runtii saameyn ku yeelan doonta ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dadkaas dhalinyarada ah oo aad u jeediin oo da'yarta ah in maaragtay mustaqbalkooda wixii hadda ka dambeeya aanay halkaas ku beer daroobin oo ay u faa'iideeyeen naftooda iyo ehelkooda ayuu gartay madaxweynuhu marka talaabadaas horu ka cale oo ku dhiiraday waa uga mahad celinaynaa asaga iyo dawladdiisaba ayagana waxaan leenahay haddii waad maqlaysaan waad aragteen runtii waa inaad ogaataan in maaragtay dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaheeda iyo xukuumaddeeduba ay talaabo horu qaadeen runtii inaan mustaqbalkiina aan halkaas lagu baylihin marka waxaa laydinka rabaa wixii maanta ka dambeeya inaad maaragtay dalkiina iyo dadkiina wax tartaan kana qoomamaysaan wixii hadda ka horeeyay oo maaragtay dembi yahay oo idinka dhacay dhammaan marka waxaan uga baxayaa intaas warkayga waxaan mahad celin ballaaran u fidinaynaa oon leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay in badan madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisa iyo dhammaan shacabka Somaliland marka aad u mahadsantihiin hada billahi tawfiiq